dowladda Soomaaliya ayaa wado dadaalo ay dib ugu furayso wadooyinka dhagxaanta iyo ciidda ku xiran iyadoo arintaasi ay bogaadinayaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo wadooyinka sababo amni u xirnaa oo dib loo furayo taasi oo ay ku qabeen dhibaatooyin ciriiriga iyo jaamka faraha badan ee ka taagan wadooyinka ciriirigan ka jira wadooyinka ayaa sabab u ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u yar cabir ahaan gaadiidka oo aad ugu soo badanaya magaalada gaadiidka xamuulka ah ka soo rarta degada oo isku xira wadooyinka iyo taraafikada oo ku yar jidadka qaar ka mid ah shacabka iyo gaadiidleyda isticmaala wadada ayaa ka hadlaya saameynta ay ku yeelatay ciriiriga wadooyinka waxayna codsadeen in la furo dhammaan wadooyinka marka inta badan waxaan dawladda ugu baaqi lahay in ay wadooyinka qaar ay noo furaan si ay wadada macnaha oo noqoto mid oo saxmadiisa aad u yar laakiin inta badan hadda waxaan aragnaa jaamacad markaan xaafadda aan ka soo baxnay oo jaamacadda aan ku socono in waqtigan oo noo dhamaado marka waxaan u baahanahay in wadada noola furo marka caqabadda ugu badan oo saaraya waxa waaye baabuurtan oo jaamkan oo mootooyinka iyo baabuurtan tareelada waxaa ka codsanaya dawladda inay waqti noogu yeesho at least maalintii inay noogu yeesho hal saac mise hal saac ay bar soo saxmad iyo wadxirka wax keenaya iyada waa ka saa halka qof aa qaado maanta meeshaas soo rabo hadda isgooska soo baan jooga yani banaadir oo kale qofka rabo waxa arkay nus saac ina u sii wado taasoo kale waxa soo weeso bajaajadii oo faraha ka batay magaaladii oo baabuurtii oo farada ka batay waxaan codsan lahayn si dhibkii dhibaatada u yaraato in dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho inta harsan ee nooga qaadaan dhagaxaanta iyo dhibaatada taalo sidoo kale jaamku wuxuu dhaliyaa sababooyin badan shilal baabuur ka dhaco inta jaamku u jiro waxa la wada carisanaa hal wado iyo laba wado waay hadee furnaaleed wado walbo baabuurta way kala leexan lahaayeen dhibaato badan ma dhici lahayn jaamka sidaas ma u sii fara badan lahayn jaamka markuu waxa sababayo wadooyinka oo xiran shilalka oo kale waxa sababo wadooyinka oo xiran mudooyinkan ayaa waxaa soo badanayay jaamka iyo ciriiriga faraha badan ee ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo dawladda Soomaaliyana ay wado dadaalo ay ku furayso wadooyinka xiran ee magaalada oo qaarkood horay loo furay iyadoo ay haddana socdaan wadooyin hor leh oo sababo amni u xirnaa oo la furayo Maxamed Muuse Cusmaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.